أفكار أركت محل كرم قدامي أنا هذا أنا بقى خلي كيسو عدالة كراسنا ألقى سوق قري dhaqan dam oo siin gacbade xasan wallahi hawadina qaadi dhulku dhacay macna maxaa hurduwaysa waa hurduwaybe naxtin darteeda hurduwa naxtin darteed جاكبونتي بكون غلاسي jagboonda ma joogin ba geedbey waa xashiish waa xashiish maxaa u dhaxeeyay ICU-da la geliyay iyo isbitaalka keenista meeqa u dhaxeysay waa famila caadi ugu sheeg walaasha waa wici kartaa hal qoraal ay taqaan ma laha seeta xataa ma qori karto eedeysanaha koowaad Yaxya Cabdiwaaxid Aways waxaa si gaar ah lagu eedeynayaa dambiga ah dilka marxuum Xasan Abuukar Cali kaas oo u geeriyooday dhaawac aad u culus oo aad u geysatay taariikhdu markay ahayd 13 bishii koowaad 2026 dhaawacaas oo ugu dambeyn u dhintay taariikhdu markay ahayd 9 bishii labaad 2026 falkaas oo ka dhacay degmada Dayniile eedeysanaha labaad Maxamed Barre Cali Axmed waxaa si gaar ah lagu eedeynayaa dambiga ah gacan siin kadib markii aad gacan ku siisay eedeysanaha koowaad dhaawaca marxuum Xasan Abuukar Cali taariikhdu markay ahayd 13 bishii koowaad 2026 falkaas oo ka dhacay degmada Dayniile gobolka Banaadir khayraale مدن قدومي محكمة شرفت له السلام يا كسورياشا كاليها أو كاتياشا بارياشا حفيزك هلالينتا كسوق قلياشا عنكو سلام يا سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن قدومي كرسولا محكمة شرفت له هذا السنة دبل حوجة يحيى عبدواحد أويس وكتر سنة هاي قوتها لو أتني سدحادي بوليسي ملتاري تاس أو كول قشا دقمة الديني لقيو أجس taariikhdu markay ahayd 4 bishii 10aad 2025 isku day dhac waxay u geysteen dhibanayaal taas oo ugu dambeyn sababtay in uu ku geeriyoodo marxuum Xasan Abuukar Cali marxuumka dhaawac ayaa ka soo gaaray halkaas ka soo gaaray uu gudoomiye isagoo dhaawac ah ayuu wuxuu baxshay ribood maadaama Yaxye iyo marxuumka la u naxariistay iyo maragyo hadeertaan maxkamadda hor keeni doono dhammaantood ay isqaanaan oo Yaxye uu ahaa degmada Dayniile laga yaqaan waliba xaafadaas Xasan intoona dhiman isbitaalka kalkaal wuxuu diiwaan galishay cidda dhibka ku dhufatay dhaawac xabadda afka uu ka gaaray ilaa dhuuntaan uu saameeyay ugu dambeyntaas sabab wuxuu qoray cidda dhibka u geysatay markii dhibka loo geysanayay cidda la socotay waa maragyo maxkamadda hor keeni doona warqadii uu qoray oo uu ku qoray maadaama uu ahaa arday wax dhigta af Soomaaliga uu qoray ee uu ku qoray magacyadii iyo cid dishay inuu yaqaano gudoomiye waa hayna ayadana soo bandhigi doona Yaxye waxa la dhex galishay isbitaalka tala keenay dad badan lagu dhex qasay taliyihiisa u rumayso halkaas oo dana ka soo baxshay marxuumka la u naxariistay taasoo ku cadeynayso in marxuumka markuu dhaawac ahaa uu yaqiinay qofka dhibka gaarsiiyay laakiin maadaama asigu muddaci uu yahay waxa loo baahan yahay marqaatiyaal xafiisku wuxuu raadiyay marqaatiyaasha goobjoog xagaa sharafka waxa ka codsanaynaa in ay noo dhageysto maragyada ku qoran eedeena dhimashada Xasan Abuukar Cali dhaawac u geeriyooday leeyahay ragalkan fadhiina waa loo haystaa arrintaas maxaa kala socotaa see wax u dhaceen arrintaas wax badan aan kala socdaa waxaan kala socdaa waxay tahay nin oo la dhahayo Yaxye oo askari ah anaga oo Balooni ka imaanay oo xaafadina u socno jaayiga meesha lagu dagayo waxaan ku aragnay nin la dhahayo Yaxye markaa aragnay Yaxye dhinaciisana waxaa fadhiyay dhulka oo dushiisa darbiga oo jaayiga lagu leexanay saarneed wiil la dhahayo ganay marka yarkii waxaan dhahay intee ka timaadeen xiligan waxaan ka imaanay Balooni had intee u socotiin oo waqti ahaantan xaafadina u socnaa marka erigaas markaan dhahayo Xasana jawaabay wiilka dhintay marxuumka Allah u naxariistay asiga jawaab asaan labadooda jawaabsanayeen marka kadib wuxuu dhahay gurigeena u socnaa guriga hadaa u socotiin kulli hayo dhahay waa baxnay marka anaga socodkiisa u soconay wax yar markaa soconay waxaa naga hor imaatay mooto feekone oo leer zaid oo shidin isbood leer ku xiran yahay mootadii markii naga hor imaatay kadib anaga mootadii aan dib u fiirinay gadaal u jeesanay macnaha soo socotay leerka indhaha noogu qabatay man naga damin marka mootadan say camal aslaan ama wax soo haleeday saadii gadaal ugu jeesanay waxaan aragnay yarkan oo qoriga watay oo Yaxye ah iyo yar ganay oo jaakad madow buu watay markaas yar kale tan waa la socday oo saddexeeyo markii yarka saddexeeyna xoogo iiga gadaal u jiray ganay laakiin garab socday kan garabkiis midig
kadib marka mootadii leerkii markii ninkan oo ay qabatay gadaal aan u jeesan leerkii ay qabatay waa aragnay markii mootadii askariga ay u dhawaatay leerka way demis marka leerka ay demis kadib anaga waa iska soconayba ilaa ninkan dad dilayo ninkan qabadni ugu dhifanayo si niyala ismandeen saan u soconay wax yar daqiiqad kadib waxaan maqlaynaa qarshab gadaal aan u jeesanay hadaba gadaal aan u jeesanay ninkii waa wana daw taagan yahay gadaashan uu taagan yahay ninkee yaxya iganayo midig ka socda geeska hadda saan u jeesanay ninka amaankii oo furtay allah u naxariistay xasan waa cararay amaanka ninkan qac markuu siiba xasan iphone aa jeebka ugu jiray iphone kan waa yaalaa kulley ninkan xasankii carro bilaabay haddoo carar anagana waa cararnay saanta rooreen marka maxaa dhacday ninka amaanka markuu furnaay cararka xasan waa cararay anagana shakiyaa mana galayba hore dhaqaaqan dam oo siin ninkan xabadda xasan wallahi hawada inay u qaadiyo dhulku dhacay kor inay xabadda u qaadi jiingad oo meesha bush ku dhisan jiingadii dhinac saas oo ula siman dhulku dhacay kadib anaga waa sii cararnay gurigana hadda waa dhaafnay anaga gurigana deganahay waa gudbay wixii il rooraya saddex wiil kaleeta laba wiil kaleeta ila socotay markaan cararayna waa gudubnay meelaan ku shaangalnay waa dhoomanay macnaha hadda hore qofkaan ku daba taagnaa karaa mugtaa ilaan markaa saas aan sii cararnay oo meesha aan tagnay kadib khayli wax baan maqlay khaylida markii aan maqlay si xujraan isdhaanay waa isoo wareersan shub waa aamusnay marka anaga haddaa baxday ninkii hadda hore banaanka taagan yahay oo ni xabad ni ugu dhufanaa isdhaanay kadib markaa saan soo baxnay xasana xabad ku dhacday allah waana la qaaday xabadii meel xun ay ugu dhacday cunuga tabcaan waa inta dhan waa go'day madaxiisa inta dhan waa jaban yahay leeyahay saas mi ahaa marka anigu bismillaahir rahmaanir rahiim iska dhahay asha daga iska qabsaday waa soo baxay waxaan soo aaday dhinacaan oo jaayga oo laamiga xagiis jaaygan hadina ku soo laabtay mootaan soo raacay mootadaan soo qaaday ani yar kaleeto markaasina kaas kiiska waxba kama ogeyn xaafadda joogo markaas mootada ila soo raacay kadibna asina meesha baa nooga harisaa jeclahay markaan laamiga aan imaanay waxaan arkay ninkan oo xabadda wiilku ku dhuftay iyo cabdibile iyo yar cabdulaahi laahi bartaan fadhiyay oo cabdulaahi meesha kiiska oo ka dhacay ninkan oo yaxya jaayga asoo ka soo baxay ninkaas ay wada kulmeen kadib cabdibiliha meesha imaaday ninkan ciidanka isku dhex daray markuu ciidanka isku dhex daray anigii warnimo ninka dilo horta waa aqaanaa andhahay ninka dili waa aqaanaa cabdulaahi marka wuxuu dhahaa ninka dili ma taqaanaa yaawa yaxya markii dhaa ninkaan oo soo aaday dhinacaygu soo aaday anama arkeeninba nin igu soo socda arkay qori wata markaan arkay aninaasaan aaday qorigan kula dhegay qoriga taliya naga qaaday qoriga markuu taliya oo naga qaaday maxamed deeqo inuu ninkan xabadda ku dhuftay ma ogtaha leedahay ma u dhaara kartaa haa u dhaara karaan dhahay maadada kala jirta waxay tahay taliya ninkan markii oo kiiska falkaas aan meesha aan taagnay aniga taliyaha saas isku qabsanay taliyaha waxaan dhahay taliyow haddoo ninkan xasan ninka xabadda ku dhacday hadduusan dhihin ninka aniga waxba iguma dhufan $500 xaalmarinaan bixinaan dhahay meeshaasaa lagu kala tagaa xaal iyo xumeen taliyaha hadda waa keeni kartaa ergaas in aan dhahay kadib ninkii saas mi ahaa cabdibilihan oo lagu soo qaaday waxaa nala geeyey isbitaal kalkaal ani cabdulaahi iyo yarkaas eedeysanaa intayna waxaa nala geeyey isbitaal kalkaal markaan tagnay cunugii ac waxaa laga soo bixiyey qolka oo baaritaanka qofka markii xabadda meesha ugu dhacday waxyaabahaas lagu baaraya aa laga soo baxshay markii qolka laga soo baxshay asoo faashi ku duuban tahay oo meesha hadda xabadda ku dhacday oo haddaa barartay hal illa u fiidan tahay xasan oo yaa xabadda kugu dhuftay allah dhowr qofood ninkan iyo dhowr qofood meesha la joojiyey ninkan iyo saddex kaleeta meesha la wada joojiyey xasan saanoo dhaa waa fiiriyey marka dambe wuxuu dhaa ninkaan xabadii ku dhuftay horta adiga yaxya ma taqaanaa yaxya kor ahaan waa ka aqaanaa farmashii meesha ku yaalo hadda waa kii intuu markaa fiiriso koon xagga ma fadhiya hadda yaxya waa kana yarkaan soo fiirinayo oo dhinacan jiro kan dhinacaas jira miya kan dhinacaas jiro yaxya marka oo ka hor imaan haysaan oo idinla hadlaayo waa iska hor waa is aqoonsateen miya macnaa muxuu weydiinaa ninka wuxuu na weydiiyey intaa ka timaadeen balooniyaa ka imaanay salaxaan ka imaanay indeertin gurigana u socnaa nabad haddaa ku dhafteen xabad inuu rido maxaa keenaya kolley xabad inuu ridin waxa keenaya waxaan waa bilaadin nin qor wata wax walba ka suurtoowaan inoona soo daba kacay oo leerka aan ku aragnay oo caadi aan wada aragnay oo kulligeena markhaati aan ka dhahay kitaabkaasna gacanta aan gushanaanay mar labaad hadda waa ku celina mar saddexaad marka waa ku booda kanaa dilay markaa dhahayso isla dhacdada kadib miya isla habeen miya maalin horta wax habeen aad 5 saac isla habeenkii miya marka oo habeenkii waaba isla falka isla markaas waa qofka waa dilay kanaa dilay markaa dhahayso isla habeenkii miya isla habeenkii waa marka hore aqoon oo rasmi ah ka dhacay soo arkay farmashiyaha oo xasan oo ka shaqeynay oo yarkaan asina oo kii kulli doctor Abdullahi xasan kale meesha farmashiyo ka shaqeynay ninkaan doctor boo kiyaa meesha
anigana meesha waa iska tagaa markii oo shaqo iyo waxyaabahaas aan ka imaado meesha iska tagaa ninkaana markaas meesha oo imaanaya askartoo dhan meesha waa iska imaadaan ninkii oo waa la wada macaamilaan أنا حافظ دقيقة مية مش شقية حافظ ما شقها موجود بونتيga meesha ka dhow jagboontiga iyo degay maarag meesha ka dhow ده سؤال ودينا سنة طابka xasuusan waxaan ku weydiin doonaa su'aalo faahfaahin u baahan marka waxaad is leedahay eedeysane yaxya mobilku ninkan ku arkay والله تاس انا ما شيء كرتاس انه ku arkay inga mobilka laakiin jeebka ugu jir ana niclaan wata nicliga da meesha lagu qaad markuu soo daba kacay adiga maxaa samayseen anaga wax shaki oo carar iyo roor iyo qartaata ma ugu jirinba inaan ninka aan ka roorno cabsi ma ka qabin banaga mushkiladu waxay timaad marka ammaanka la furay markaas ma orto bilaawday ha xasana bilaaway wuxuu idin dhahay markaasi ma bana la hadlinba ammaanka qacba doo siiba xasan waa carar anaga saasa u dhaqaaqan dam xabad waarid waabana dawad socotay xabad isla markii dhulka ku dhacay xakada ma santahay xaafadda bangala ma degan tahay bangala hadda ma degan markuu xasan dhimanayo xasan markuu dhimanaa meeshaan deganaa waa deganeed markuu xasan dhintay kadibna waa ka guuraa saalada markii la geliyo marxuumkii dhinta Allah u naxariistee dadkii wax ka soo bixiyay saalada ka soo saaray oo tusaayay cidda wax dishay adiga ma ku jirtay ana ma ku jirin markii la soo bixinay ma ku jirin banaankaas ka taagnay ana dhinaca ali leexi taliyaa dhinaca leexi maxaa u dhaxeeyay ICU-da la geliyay iyo isbitaalka keenista meeqa u dhaxeysay waxa u dhaxeeyay markii ICU-da la gelin horta waxay ahayd muddo aadi oo 9 saac habeenimo yaxya aqoon muu leedahay yaxya aqoon koran u leeyahay meesha ku arki jiray ninkan wajigiisa ma taqaan waa kaaga maya ma taqaani hore u taqaan wajigiisa hal mar aan arkay hal mar oo habeen asi weligii hal mar aan arkay oo farmashiyo nagu dhaxay maade weligaa yaxya hal mar arag moota feekon inaad aragtay ayaa maxkamadda la wadaagtay mootada feekonka askartii saarneed ama dadkii qoryaha watay saarnaa meeqa qof ay ahaayeen hal nin la watay mootadaas hal nin oo dhageedahay hal nin bisa saarnaa ma taqaan ninkaas ma aqaana mana orin weligeena ma arkin ma maqashay ama ma aragtay adiga dad habeenkaas oo laba wiil ahaa oo qoryo watay oo isla eeriyada joogay ma maqashay ma maqal oo ma santaa maxkamadda sharafta goobta uu falka ka dhacay leerar ma ku xirnaa mise mugdiye leerar waa ku xirnaa meesha habeenkaas ayada dharka uu yaxya watay ma xasuusta dhar oo ciidan oo watay oo finaan ciidan ah iyo sarwaal ciidan oo watay finaan oo tuuto watay adigii marxuumka Allah u naxariistee qaraabatiin suusaas ma qaraabo korana abti koraa u tahay Soomaa qaabka abti u tahay inaad maxkamad u sharxan karo qaabta abtiga waa macnaa horta gabadha Aamina Maxamed Saalax Allah gabar oo aniida oo qaraabo aan nahay waan nahay oo ila أنا رحت محمد علي نور محمد عبد الله فالي ده جوده ويل كده شنا وعلى آمين محمد صالح مفهوم جوده وحاسس كوا صود أنا دنك هاي دي حاجة جفا ها كر ها لا دي هبل ما آمين محمد صالح محمد علي نور مسكين ما كرام قدومي arrintaas ina ogaanaa rabnaa wuxuu dhahay jifoodu waxa la dhahaa markii oo isku abtirsan isku laf ahaan macnaa laf xaq hooyadu lafta oo dhalashada inuu hubiyaan rabnaa ada kor ahaan macnaa qabiil ahaan meesha aan ku kulnaa gabadhaas oo isku laf inaanahay gabadha marxuumka dhashay Aamina saasaas la dhahaa soo ma sheegi Aamina la dhahaa Soomaa gabadha Aamina hooyadu way soo korsatay aday ku soo korsatay ayayda waay Soomaa ayaydi ma si ayaydi ku tahay gurigeeda ku soo kortay Soomaa gurigeeda ku soo koraa aday marxuumkiisu guriga ku soo korteen Soomaa isku guri may marxuumka ayadiis ku soo korsatay adig Soomaa may Aamina hooyadeed marxuumka ayadiis Soomaa waa family caadi ugu sheeg anna waa jawriirnaysa Faadimo Saalax Ibrahim Cabdi Faadimo Saalax Faadimo عندنا سينب أحمد عمر أنا سكرت أنا هو سينب هواية دوا ها أنا هذا لكم معنا ساس نبغى فاميلا كرسول أو كجا هوريري هوريرتا فانسي تاسلر هوريرتا دنجة واو هذا الشام واو هذا الشام اسمه ما كلا أبوه لما maama wiilkaas maxaad ku tihiin asiga adiga iyo asiga laba gabdhood isku hooyaha aadi kala dhashay labadiin asi hooyadiis iyo adi hooyada hal hooyo dhashay kala aabiga isoo faasata iska fadhiis markii oo Cabdibilaah ay sheegaysay in oo
aad ku aragtay yaxye kadibna aad mataqaanaa isgacan qaadeen oo markaas ganay ma joogin goobta mahayno ma ganay markaas goobta ma joogin intaas waxaan ku weydiinaa waa mahadsantahay yarkan oo yaxay la cunuga xabad ku dhuftay yaxya xabad ku dhuftay ay say wax u dhaceen macnaheedu salaxa ka imaane marka xaafada u socon anayna salaxa ka imaane xaafada u socon laamiya ku aragnay marka yaxya laamiya ku aragnay inta ka imaadeen salaxa ka imaane adaan xaafada waqtiyaasaan u galnay asi socon marka dadka waan soo dawgalayeen mood feekona ay hor imaade oo nalka fulka u daaran leerka u daaran anay hor imaade marka dadkaana leerka ay qabad marka saan gadaala u fiirini dadkaana aragnay marka ay hoos socdaan waxa isdaan dadkii hadda oo laami soo aragtay waan iska siisin yaalka xaafada isku aragtiine ee ka socda waa soo soconi intii aasi socno dadkaan waan soo dawgaleen marka yarkaas oo gani la xaafadood waqtiyaas oo gaarni nalaa ka daarnaa meesha nalka daarnaa marka nalka waqtiga meesha nalkaas oo gaarni ammaanko noo furtay yarka oo hadda xabad ku dhacday aaroorka bilaabi asluura maana ninkaan reeshantoo dhacsi yarka qoort inta ka soo gashi inta uu qaraxday marka inta uu qaraxday ninkaan waaneen waa orodni xaafada aadni ana xaafada ku heri bas wax kale awaam jiro adiga banooniga ma dheeshaa banooniga xasan waa soo dheesheen miya dadkan yaa ka wada dadkan yaa waay dadkan daba socda maanta ku labadaas hor ma arki jirto hor ma aragti waa arki jira xaafada ku arkay maxaa dhacay qofkii aad soo dhaafteen intii ka dab maad xabad inuu ku rido maxaa kalifi karaa isleedahay sabab أنا وحاسة كلي فكرة مسداها لكن كانت وسعودة مشاكري لكن أنا أبو ديلان بقى كذب إن اللي حيرني كاس يكون مغش حافظة أنا حافظة اسك صاحي ورد دامي إيماني بين كاسة موردي كستيريست أو يركان أو صاحبها أنا لسه أنا حافظ له أفتي ورد داوي يسود عباس معناه ما هوردويس وابوردواي بقى نحتين درتيد وردوا نحتين درتيد adiga dadkii isbitaalka aaday iyo halkaas kuma jirin ma jirin marka idinku yimid misla hadasheen yaxay waqti alaami aan isku aragnaa inta ki imaadeen salaxa ka imaanaya dhaan waa ka tagnile wax kale misweydiin su'aal weydiinaysan yaxye kutaa lagu marshay alla ka cabsi laga baahan yahay inuu ninkan xabad oo ku dhufsay ana dhimaha ogaano ku dhuftay ma jirtaa in marxuumka mobile laga dhicir oo iPhone oo wata iPhone jeebka uu jiraa jagboonti boo ka horgalaasay jagboonti ma joogin ba geedbey oo cabay xashiish oo cabay xashiish adba ku aragtay xashiish ku arkaasoo ii ku caawina gudubni ba markaas ma cabay yaxay wuxuu leeyahay xabad meel kale ka timid ku dhacday marka xabadiis inay tahay kutaabkaas ma martay kutaaban gacan u gashtay kutaabkaas oo martay waan arkiisman waa arkay kasoo u dil iimaan yaxye qoryo watay Soomaan qoryo wataa dar shacaba oo ku labisnay Soomaan dar military dar oo wuxuu wato oo ciidan jacket shaati wuxuu watay finaan oo ciidan ah iyo surwaal oo tuuto adiga markay cararteen oo marxuumkii dhacay oo meesha ku dhacay yaa qaada marxuumka ma waa soo kacay kadib xagee aad asaga guryooda kuweey oo dhacay waqtiyaas guryooda oo kuweey oo dhacay dadkii wax ka qaaday ma ku jirtaa may adiga yaxye horey ma isu taqaanin waxaa isku arkeeni ani asi Daniel kasoo wax ay iska seeni adiga ma aqoonin wajahan ma aqoonin ninka goorma kugu horeyso aragtay mar walba oo anana oo banoona aadeen waa is arkeeni asoo qori oo wato xaafad oo soo imaa oo laami oo qunqaa adiga wax bilowda aad leedahay ma jirto may wala haajir waa iska dhaaf arinta sax lagu siyaa Soomaa inta soonkaad iska dhaaft soo saas ma koortiisa iska dhaaf waa ku xanuunsaday xilliga oo uu falka dhacay bilwada lahayd soo saas ma koortiisa aan dhaafiyaan ku dhaaf adiga xeeraanta markaad imaanaysay ehelada marxuumka ayaa ku dhahay marxaati noqo oo xeeraanta kula soo xiriir soo saas ma ma mahsanta bashir saak waxa lagu yeeray waxa geeriyooday Xasan Abuukar dhintay ragalka fadhina waa loo haystaa adiga markii wax dhacayn inta joogto saana wax u dhaceen horta anaga salaxa ka imaanay ciyaara ka imaanay marka salax ka imaanay laamiga marka taaganahay oo xaafada goolada xaafadiina gal rabno laamiga gaarkiisa waxa taagnaayeen yarkan oo la dhahayo gani iyo waxa taagnaayeen yaxay mid kale taala jiro mid kale waa fadhiyay
markaasaa yaxyiyaan weydiiyey waxaan ugu dhahay halkay ka imaateen markaasaa ku dhahan niyo salaxa ka imaana xaafadaan usii socnaan dhahay markaasuuna dhahay ayi waa sii baxa waa gudubne ada cabaar markaad sii socno oo waddada dhexaad sii mareyno mooto faykon naga hor imaatay mootadii faykonta naga hor imaatay leerkeeda indhaha naga soo qabtay wayna gudubtay gadaala usii fiirinay markaa gadaal usii fiirinayni yaxye iyo geniyey aan aragnay oo soo socdaan marka aragnay yarka marxuumka xasana wuxuu dhahay waxaana soo daba socday yaxye iyo geniyaan soo daba socdaane maxamed wuxuu dhahay kuley cayaalka xaafadda le waa kuley wax mana dhiwa ama naga badsadaan ay rabaan oo maleena kuley waxay rabaan waa arkaynaa horta socodka naga buubsiin milasku halay karaan dhan waa soconay abeenadii aan marayno xaafadda geni iyo gurigooda agtiis markaan marayno meesha leerarka daaran yahay waa nagu soo beegmay isla markii oo nagu soo beegmay qori ammaankiis oo furtay qori ammaankiis markuu furtay ana waa wada istaagno waa gadaal oo soo fiirinay waa yaxye iyo bartaan taagan xasan markaas mobile iPhone oo yaro oo jeebkiis ku jiray xasan markii ninkan qori ammaankiis oo furtay aniga istaagno soo jeesanay xasan orodoo bilaabay xasan orodkoo bilaabay ma ninkan xabadda oo soo riday xasan qoorta gadaal ka soo gashay qaankeena ugu baxay kabacdi anaga markii xabadda oo dhacday oo riday ninkan ku dhacday waa kala ararnay anaga xaafadaas sii galnay xasan oo soo dhibaateynaayo xaafadda oo imaaday xaafadii la qeylinayo hooyadiisa qeylinaysa aan maqalnay meeshii markaa imaanna mooto bajaaj lagu qaaday xasan hortiina la soo qaaday kabacdi waa soo baxnay meeshii oo dhibka ka dhacay aan imaanay maxamed deeq cabdullaahi la soo wacay cabdullaahi waxaan dhahay ninkii xasan ahay xabad lagu dhuftay ninkii oo yaxye ahaayaan ku dhuftay saasuu ogaaw maxamed cabdullaahi markaas wuxuu ku jiray farmashiyaha laamiga oo ka shaqeeya farmashiyaha ka soo baxay meeshuu nagu sugaayay anagana meeshii ka baxnay gurigii ka baxnay xaafadda ka baxnay xasan horteena la qaaday waxaan marnay meeshii oo shilka oo noogu dhacay oo kabaha iyo mobilada ay noogu dhaceen meeshii aan tagnay meeshii aan kasii baxnay mootaa qaadanay laamiga aadnay laami markaa aadnay waxaan meesha ugu tagnay cabdullaahi iyo cabdibile meesha taagan oo taliyaha degmada oo isla joogaan aan meesha ugu tagnay markaasaa taliyaha wuxuuna wareystay qofka xabadda idinku soo riday ma taqaaniin maxamed deeq wuxuu dhahay ninka xabadda nagu soo ridi yaxye waaye annagaa hubno yaxye xabadda nagu soo ridi yaxyaa markaasi oo saas oo aan leenahay hadalkiisa aan sheegayno askartoo ku dhex jira dhinacoo taaganya markaasi markii oo yaxye aan dhahnay yaxyii wuu soo baxay markaas magaciis markuu maqlay wuu soo baxay maxamed deeq xaggiisa soo aaday maxamed deeq xaggiisa markuu soo aaday maxamed deeq ninka markuu soo socdo arkaysan waa ka horbaxay labada meesha qori iskula qabsadeen taliyii maxamed deeq oo dharbaaxay cabdibiliyo ku tuuray taliyii marka anaga waxa dhan anaga waa dhibaataysanahay wala saaxiibkeena dhibkaas la gaarsiiyey haddana anaga kuleela anaga keenay taliyo dhibkaas anaas idinka muhubtiin oo dhan inuu ninkaas oo ninkan xabad oo ku dhufto muhubtiin ha anaga goob joog aan dhan ninkaas 3 jeer aragnay marka koowaad oo laami oo taagnay oo weydiinay meesha ka imaanay in marka labaad oo mootada leerkeeda qabatay in marka saddexaad oo qori ammaankiisa oo furnay 3 jeer aragnay aan dhan saas miyaha ninka oo hadda xabad ku dhacda oo dhaawacay hadoo sheeg way ninkan xabad ninkan ay ugu dhufto doo dhiibay xabsi atiin ma ogashiin هاو أقولنا حبسينا قال سيجا وكسب بحنا محمد داق وحال صار عبد الله أنا هنا بجاجك صوت أبو خالدني وحاسكول إيماني وكي إسبتال كاسكول إيماني حسن ومركز وجوده اللي قليلنا وماشي جوجو أسكرتي أو الله صفي أسكرتي مركي الله صفي وحال لك صوت حصار نيجا حبض كوجلفت مركز أسيجو وينا وخيرونا وحكونا نيجان يحيى عبد كوجلفت تريا ماشي وكصحيح أسكني منكي يحيى مركز عبد الله على صاري سلك على وضع أنت سأوجاني ما تقان رجعنا هربوا تقان حافظوا أكواركا كان كلامه يحيى وقرنا كان كلام حوار يا جني حافظوا بدقية هبة أسقور مودن جني قور مودن قوري نقول يحيى هاي هذا سؤال ودني سانقرنا yaxye in uu dilay marxuum xasan kutaab waa ku marsooma oo ku dhaartaas si kasta inuu u dilay oo si bareer u dilay noogu dhaartmaan xabadda markuu ku dhufay u jeedmaano xabadda ma santa yaxye wuxuu joogay markaad soo marayseen laamiga Soomaa si fiican asaga iyo geney ayaa wada taagnay Soomaa si geney wada taagnaayeen mid kale tan meesha fadhiyay saddex ay ahaayeen dadka saddexdoodii laamiga ayay taagnaayeen Soomaa laamiga gaarkiisa taagnaayeen wax cadaawada ama dagaala ama dakana ah oo hore idinkaga dhaxeeyay wax naga dhaxeeyay male wax markaas uu idinka qaatay oo ama mobile ama waxa ah ma jirta soo hod qaasho waxa ka horeysa inaad istaagto ka horeysa
kor u taaga gacmaha moobeelada keena ma idin dhah maya markaas meesha laamiga u ahay meesha falka ka dhacay marka ammaanka uu furnayo xabadda idinku ridayo iyo adinka intay isu jirtaan qiyaas ahaan ugu yaraan waxaa iskugu jirnaa 6 tilaab ilaa 5 tilaab adiga wax balwada ma leedahay maya wax balwada oo habeenka ay isticmaalayeen ma jirtaa adiga iyo marxuumka dhintay Allah u naxariistay wax qaraabo oo inaga dhaxaysa ma jirto maya waxa isku naay malaaniya saaxiibo oo kaliya anaga dhaxaysa darisaatiin soo saas ma habeenkii marxuumka waa la qaaday isbitaal la geeyay adina xaafadada isku hoyay saas way soo waa ka soo dawbacnay Cabdibilaa ana soo qaada taliyana soo qaada hadalku waa maqliis maxaa kugu dhacday دكتور كاو عبد الله كاو كاود عبد الله كاو قال عبد الله habeenkaas sidee wax ku soo gaareen wiilku waxaan ku dhahay abtiya waay markii waa isla shaqeynaa oo goob isla joognay abaara markay tahay farmashiya waxay xirnaa 4 saac weynaba 4 saac weynaba markii waxay dhaynay aan salaax u socdaa hayaan dhahay hal door raaw tuuray hal door lacag u tuuray ay salaax ku soo dhiilaan dhahay halkii door ay qaatay salaax oo aaday as iyo waxay soo socdeen Bashiir iyo Maxamed Deeq banaanka u fadhiyeen guu waxaan dhaynay mobilkan soo dhigaan dhahay mootaan saaray as Maxamed Deeq mobilka soo dhigaan xaafadda aad وأبحن حافظ هذا إنك موبايلك ما بسودي أنا جابك كسو عشته صلاح وهذا أذن عبارة مركايتا هذه شن ساعة برا وينما أنا أجي فوق مركا ولا شيء اسمه حافظ مني لين كلا دقنا إذن لين كلا دقنا عبارة مركايتا هذه شن ساعة بر حافظ اللي يقول ما هذا ميلا يقول ما هذا هو ده نيو الباب كفر هذا عنده حسنا حبط كده هذا سيام كسور داني موبايلك مركا حوته فرمشيا ماشان كشغال موبايلك ماشان وسطها marka imaade mobilkii marka walaashiya waxay inay jigbotiga jooga video hada la daawana xataa taliyaha ka duway video oo hada meesha laga soo bandhigaa aniga inta abada ugu soo gashay meesha ugu soo bixisay taliyaha ka duway taliyaha dadkiisa ka duway video markaas ay ninka jigbotiga marka gaaray casano inuu gudbo uu diiday dhaawaan afka ugu yaala niyo ciidamadana uu sheegaya marka ninkii gini ahaa si fiican loo fahmay gini marka xoolaha gini iyo yaxyo dhaay marka ninkan gini la fahmaba walaashi marka ay soo wacda gini si fiican loo yaqaana markaas walaashi gini taqaana ninki gini ah in la socday aasana xabad igu dhufto taagan yahay nimankaas raadi waa ana marka farmashiya joogo hortadan joogay 5 saac bar farmashiya ma furna marka 4 saac amal la xiraa waayaan ana jigbo ana meesha taagan waxay soo wacay wiil ka tirsan askarta oo la dhahay Idris ay soo wacay intay joogtaa wadaniyo farmashiya hortada jooga aan dhahay bartaas ka dhaqaaqan oo dhahay ayaa kula socdaan taliyaha la socdo waaya bartaas ugu imaadaan saana uu sii jeeday dhanka jigboontiga u jeeday yaacay waxa ka imaaday gadaasheeda gabdha kale ana markaas soo orday banaanka imaaday gabdha kale xaafadda la degneen ay iga dawa imaaday hatta waa la weydiin karaa markay gabdhi iga dawa imaadeen ninkan leenkaas kale uu soo baxay asoo meesha maraa arag yaacay oo kaale aan waa wacay korna la soo wacaya meesha istaag korna la dhahay kaale la dhahay marka bartaas oo imaaday yaacay waxaan dhaynay saaxo kiisa meeshan ka dhacay wiilka abtigu ay asna u yaqaana xitaa waxaan leeyahay wiilka abtigu waa xabad lagu dhuftay wax ma ka ogtahay arintaas may nimin inta mara xitaa ma aragtaan mayna laakiin hal xabaa dhacday wada hal xabaa bartaan ka dhacday xabadaas laamay tahay taa nadarkeedu waa dhahay marka waxaan leeyahay taliyaha soo socday ciidamada iyaga sugaya isna marka saa ii dhaqaaqay taliyaha hore ku soo hayasna waxa intay joogtaa meesha jooga waaya bartaas ku soo hoyday taliyaha aniga si fiican isku naqaana xitaa waaya marka hore ninkan markii taliye xogaa iga dhaqaaqay xaq ama xogaa iga dhaqaaqay anaynu laamiga taagnaa asna laamiga xogaa iga dhaqaaqay xogaa markii igu faayay Cabdibiliya imaaday Cabdibiliya markuu imaaday ninkan xaq ama loo taagnaa Cabdibiliya oo soo dhaqaaqay agtiida oo imaaday ninkan oo soo daw baxay marka meeshaas la wada imaanay taliyaha soo digtay waa soo wareersanay waxaan inay kiiska meeshan oo ka dhacay waa soo fiirinayna keena marka kiiska meeshan ka dhacay waa soo fiirinayna keena markaan dhaynaba waxa imaaday Maxamed Deeq oo moota laamiga soo digtay وصورت محمد أكتيد وإماد أنا تليها أساس لا تجنن محمد أكتيد وإماد أكتيد مركوي إماد على إني عبد الله إنك حسن حبت كله في إني وأنا أركيه وإن هول واي إني كان مرك أذكر ثاني أصف نت قداش يلو تجنا إني كان يا قدالو تجنا وصوب قد بي محمد أخرتي سو استوى محمد إني ونك أنا حسن حبت كله في كان واي قري ولا دقي قري ولا قبض ده قري مرك ولا قبض ده إني حسن تليها كقاضي محمد داقي ماشى حوا ربشي وحاجة جارتي مربعنا إني ونكان عدينا دقها وسويديني نوا نكان حداقة حدا نكان بعد نكان حبت كله فنين شن بقول دورة أي شرط نكان وحل مرنا ولا شن بقول دورة أي شرط نكان هالكيس واسينا حدو نكان حسنوا ما أنا أدور ده شن بقول دورة أي شرط هذا وهي الله يسي عبد بليق صوب ورعني حسنوا الله كيني وعوق جري الله ونحرس مركز دايما الله سمعنا
aniga emergency una hadlay 10 daqiiqo ina sugay 10 daqiiqo ma sugi karnaan dhayn waayo 5 daqiiqo na sugaydan hayaa hadlay 5 daqiiqo markaa sugayna waxa la ninka soo baxsada ani askar kale israacnay maxamed deeq asna dhinac kale uga taagnaa banaanka camal oo taagnaa ani askar kale israacnay hada ninka inta joogo dhahay maxamed deeq maxaa asa u galay waxaadna boojo wax u galay malaha maxamed deeq aniga gacantayda ku soo bixinay gaas gacanta markaa ku soo bixiyay ani iyo wiil kale askari gacanta ku soo bixinay gaariga hoos saarnaa waa riixnay meesha loo keenay nimankii askarti saf la geliyay hortiya waxaan leeyahay ninkan inta ku soo bixinay nimanka askar saf geliyaan saf u geliyay nimankii markii loo keenay waxaan leeyahay ninka ku dilay sheega hadlay ninkan yaxya leen kala taagnaa xataa saamarku saf u maray xabad barta amal uga dhacday hortistaan uu lixji waay marka saan oo dhahay saddex qof markuu amal ma ku gaaray xudhay mugu jiro dhahay markaas dastaan oo dhahay uu qaylay xataa dad badan ay joogay uu qaylay kan way ki xabad ugu rufto dhahay saasan waa soo baxnay waxaan geynay saldhig cusboole saldhig kanaan dhahay saldhig kan kala geynay an iyo taliyaada la soconay hal aniga ayaa ka socday dhibina ayaa ka socday anaa ka socdaan dhahay qorigiis ninka bartaas lagu baaray hal baalaad oo ka maqaneed xataa bartaas lagu kala baaray hal baalaad oo ka maqaneed waxay cali biris waxay la saciimo waxa laga qoray uubi way haanday 2 saac subaxnimo saasa ku tagay ginigii isla waqtigaas horta nimadaas waxaan soo baxnay giniyaa raadinay ani taliyaad la soconay anan iyo ninkan cadeen hadii buuxda ninkan sheegay giniga cadeen buuxda noo yahay giniyaa raadinayna maadaama wiilkii gini uu sheegay aan dhahay alla giniyaa raadinay wiila markii meesha ka qabanay waxaan xafid gini noo geeyay xaafad ku dhigan aanu geeyay xaafadii waa garaacnaa laga furo waa la jibiyay xaafadii nin kale ku jiray gini xaafadistan waa on marka gini xaafadistan oo tilmaamay giniga toosha ku qabtay ana xataa kor ana saarnaa xataa toosha saas ugu qabtay giniyo soo istaagaan dhahay askarta ay la socotay giniga saas ku soo istaagay taliya marka banaanka yimaad hal dhar soo gashaa lay boomle wata xitaa dhar soo gashaa lay inay dhar soo xiro dhar soo xirtay wana kiiska lagu hayaa wax kama ogo dhahay waayaha ninkan ada cadeynaysa lay marka xabsiga lagu geynaa maya waa weydiin karta xataa weydiin kartaa midda ninka hadda dhahay gabadha qoraalka ninka gabadha qoraal qortay walaasha waa wici kartaa hal qoraal ay taqaan ma laha seeta xataa ma qori karto seeta hay ma dhaafin karto qoraal ay qori karto ma laha qoraalada hadda inta laga soo bandhigin xasano waa qoray xasano as warqad qofka qoray gacantiisa waa xasano waa ana ba taagnaa maxamed deeq aduu xitaa xasano waa ana saas u taagnaa muuqaalka asba ku jira ma warqad leeyahay warqada ma ana taagnaa xataa ICU waxay maalintaas hadda 8 saac 7 saac malan la fasaxay waxa la banaanka malan la keena inta artin waa soo fiirsan kartiin Allah saas darteed waa walaashana qoraalkan hadda xasano waa qoray qoraalka asoo qoray wada duuban ma jira oo asiga qoraya wada sawiran asiga qoraal qoraa waxa la duubay warqad iyo gacan ma gacantiisu waa taas caadi ma jirta sawir ma ka qaad sawir ani asla taagnan maxamed deeq la duubaa baade doctor ma santa ifris kiiskan oo ay u xiran yihiin labada eedeysane kala ah Yaxya Cabdiwaaxid Aweys iyo Maxamed Barre Yaxya oo loo yaqaan Tugtug iyo Maxamed Barre oo loo yaqaan Gani waxay dhaawac xabadeed gaarsiiyeen dhibane oo markaa dhibana ahaa xasan Abuukar Cali oo ugu dambeyn u geeriyooday gudoomiye ka soo maxkamadda sharafta leh waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah meesha ay ku dhacayeen wax ay isku dayeen inay ku dhacaan waxay ahayd laamiga markii u suurtagali weysay ee luuqa gashteen oo xaafadda luuqa ay ku leexsadeenna waxay isku dayeen in ay dhacaan laakiinse markii loo goobgareeyay xabaddii marxuumka iyo saxaabtiisaba waxay cagaha ka dayeen inay ordaan oo ay naf bideen halkaas looguma sii siminaya waxay jeegada ku dhufteen marxuum xasan Abuukar Cali waxaana ku dhuftay jeegada eedeysane Yaxya Cabdiwaaxid Aweys waxaan rabaa mid gudoomiye cadeemanka inaan maxkamadda la wadaago Yaxye waqtiga ma noola soo ahaa inaan la wadaago wuu hadlay asaga soo dhex baxsbalino waxaan rabnaa Yaxye qaabku ahaa Yaxye waa kana waa nin marxuum xasan Abuukar Cali waa kana oo eedeysane Yaxye uu ku dhuftay qoorta halkaas uu ku dhuftay afka halahan dhala bax dhagta qaybtan iyo daanka dhanba ma jiro marka qaabka oo u yaalay waa kana gudoomiye daankiisa qaabka u yaalo lafahaas burburay aad u jeedid waa xabadii 5 talaabo u jirtay lagu dhufto way qaabkaas way daankiisa mid gudoomiye daan noocaas way xabadda halkaas loogu dhuftay halahan dhan waa baxay macna marka ma jiraan seedadkii inta iyo daankan iyo gabi ahaanba ma jiraan waxa saas u galay waa eedeysan Yaxya Tugtug oo qoriga dawladda saan ugu galay wuxuu ahaa isku xaafad ahaayeen wuxuu ahaa nin dhalinyaro xaafad degan Bangalo wuxuu ahaa wiil yar oo da soo baxaysa ah maamada aragto yartaa dhash wuxuu u ahaa horaado u ahaa horgalo u ahaa ninka saan u galay waa eedeysan Yaxya waa kana asigoo koomada ku jiro marka waxa ilaahay maadiya marxuumku wuxuu qoraa fariimaha iyo qori yaqaana inta markuu ahaa maadaama uu heli karo
وعدين لا يغري كريم وحور يبي فرين قرالات والعدالة هلي راشو إذا سنة يحيى إدلي يحيى توك إدلي هبلي أنا الجو فريمها هو أنا من قدوم فريمها وحودرها باره السلام عليكم واحد ربتد إيشك مقع أوس الدحن يو مقع هويدا حسن أبو بكر علي آمنو محمد صالح ده ماشى كل تي وحصلنا لويديها وحويديها وباري حيابها صدق وحي أهايين ولا أهايين اللي دتك كدلي وحي أهايين السجا إيه دنا يركره أو حشيش ماشي كعباي حيابها عجيب كان كوش من قدوم حشيش كان وحكته السئلة سنة يحيى إما مرحوم كاس ده يرد إنه دان كيسات وببجي وقدام بين وقريو سببته أدري كم الجواب كريه يحيى معايا لي هودو كدري ما بتجوجين بلايين مركو عبي وحكي أنتي إن مسكين كاس يركأ الدأ جرا إمامه يرتاح لشيء إنه نفسي نلاش مركو أساس شيء فرنت أساس قراي وحياة هاين ولي حشيش مشكو عباين وين ورستين أنت كإمام دينين دهين كدمنا صالحان كإمامني كدب وين صو راعين سيدك كدب دلني ردي أنا جلس سعودي حبض أي نكسور دي سببت أدش محاور سببت أدلي وأنا هو ذا كجرو وحشيش عبي قدامي حشيش كانوا حكاتوس أما مركا غار مركا علماء أدوي ديست أو كنت قصصي دراجس كالش إيه مركا جوجل جريس مسكحية وقف قسامية مسكحية مركا هيكين إذا إن قف وكلان دغ برامبرو إن قف وكلان دغ تحسي قف دنو بالأدنى وما ماذا يدرس شان لو سكري أو إسكوليها أو هرادها ياو إذا سنة يحتوك تقول بليها برامبر إنه دلي وقابك هذه يا كل وعي لأن يراد كلمة عود الشيخ بارا وديها وكان بشير أو نونا ناس ولالو محمد أو لونا ناس إندي محمد داي عثمان صدق هذا أنت أنك إنه هبا عجيبك حوا صبرك أدري محل كريم وهو عباره إنه برويو إلهك عافيه لي ولا الكن باري هذا غير الله سي آمين يا ربي من قدام ميكسر محكمة شرفت له أنت أسكلي لوجو مسيء كان ولا غري فرين تواتنا الساقة فرين الربا واحد يدي له قرها ولا عدالة الربا محكمة إذا إنك كنت بيسان ربا شو يدي إن محكمة وحكمته دلت وقشان تلو حكمه تلك مسار الربا ولا هل كانوا كقرا دتك مرقاتياش وأهاي أيو شيء من قدام هل كاسو كقرا ورقتاسو كقرا because أفكار أركت محل كرم من قدامي أنا هذا عم بقى كل كيسو عدالة كرة سنة هل كاسو كقرا وقرالك وقري من قدامي أنت كدب وحاحي إن مرحومك وجريودو حل رجينا إنه بكسدو ما دام باريه كيس إله وعافيه ويري إلهنا عظمات أبو درم لكن إلهي إسقى أقرتي وقتي سلاس وكيكا كنا السببي إذا سنة يحتوك أنكو إذا عمر قاتاش أنكو من قدامي دان كماشي حبضة كهاليش إيقاب كحبضة وقد عري لغاتير تأدي وقد ديرس لابد تختار اللي جاي ودكفير يكلاه دان كاس وين مذوباري هلا نواب بحري حبضة كل عدنا كينيس من قدامي دهنا دانا حبضة كل عدنا حبضة سوقش بس كده ماي وحن هنا ورقد إسبيتال المدينة أو شيء جيسو ريسون قولنتي هلا هذا الكاس حبضة كذا شيء هلا نواب من قدامي حفيز كده سكبعد كنت دالي إن له لو ضدك أو قري سلوا ورش وأو هلاي وتعدمك اللي وذاك دونا محكمتنا اللي وذاك دونا سلوا كله حفيز كنت دالي إن لا تجا قبت واتنا من قدامي ما أنت دن أبو كاتاش ماشي كور رسناين وماشان ولاميجا السكراعي لاميجا نوار كمش اللي هايو ماشان ولاميجا كل من اللي هو دي إذا سنة مرحوم كي مرقاتاش كل من لاميجا أنا السكارك صلح كي ماذا لوجه روجلين قبت وكد لي وقبت أصبر حتى وبنان وحافظها لا يركب كل الحرين واي قبت ومرحوم كد لي ماشي مرحومك إكسكتل وكل عنا وماشاس مرحومك وليبا وجهاتمي سوى داوع درمه يقولوا ويجز قرقراعي نفكته إذا سنة أنا بدو قدومي ولا السعودي وحكوك عن سيء إن وقريو إذا سنة يحتوك أود المرحوم كاس بارستيد waxaa ii soo baxday in dil kasta inuu dil dhacay mas'uulna ka yahay eedeysane Yaxya Abdi Waahid Awees kiiskan adaa baraka ah safiya si ila dhamadkiisa صح
marxuumka iyo adiga WhatsApp-ka xog aad isku weydaarsateen ayaa jira Soomaa waxaan codsanaa gudoomiye xogtaas in la siiyo si aan difaaceena ugu darsano oo telefoonka laga qaado xogtan aan aragnay is dhaafsadeen ma santa walahiila dad falkan geystay oo ay ku sheegeen eedeysanayaasha oo sawiradooda lagula wadaagay ma jirtaa mise ma jirto sawir la wadaagay oo leedahay ninkaana falka geystay leedahay ma jirto laakiin waxay ii sheegeen inaysan ayaga geysan oo nin kale uu geystay adiga marxuumka dhintay Allah u naxariistee inta uu dhaawac ahay ma la kulantay dhowr jeer isbitaalka kalkaal markii la geenayay 14 isbitaalka kalkaal anaa ugu tagay markii laga bixiyay isbitaalka kalkaal haddana waxa ugu sii tagay Digfer oo ICU ku jiro koomo ku jiro marka saddexaad haddana soo waliba geeridiis waa geeri marxuumka galay koomada wuxuu galay 13 farka markuu dhacay adiga wuxuu galay labada bisha labaad oo Digfer loo qaaday inta ka horeysay wuxuu inta kale ma hadli karin laakiin waxoogaa message wax ay fariin iyo wax walba wuxuu leeyahay ma hadli kar laakiin fariin aan kugu jawaaba ma haysaa fooqi xabada dishay ama dhaawacday marxuumka fooqeedii ma haysaa may waa la heli karay fooqi waa la heli karay Soomaa waa raadi laakiin waa heleel waay yani waa isku dayaa laakiin waa heleel waa weysay fooqi waliba 3 mar aan ku noqday si aan u helo marxuumka xabada ma ka baxday mise waa dhax fariisatay waa ka dhax baxday inta soo gaad kan dhanay jartaba waa ma santa maxkamad sharafta baare gungaarkaada maqraatiga koobaad saas sheegtay maxamed deeq baa kuwa maxamed deeqna wuxuu sheegayaa oo maqraatiga koobaad gungaarkaada sida ku qoran su'aashaan dhameey sida ku qoran gungaarkaada in la soo wacay maxamed deeq oo uu goobjoog ahayn saas ku waafajinaysa gungaarkaada gudoomiye sharxi karaa ereygaasaan sharxayaa markii taariikhdu markay 13 bisha koowaad 2026 markuu dhacay falka dilka ah eedeysanaha marxuumka markay xabadu ku dhacday uu cararay meel luuq galay meeshuu ku dhacay intaas markay dhacday kadib waxaa yimid Cabdullaahi nin la dhaho oo hadda inta inuu fadhiyo u maleynaayo oo abti u ah marxuumka sigaa loo soo sheegay wuu yimid markuu yimid wuxuu u tagay taliyihii meesha xukumayay oo la yiraahdo Cabdi Shukri markuu tagay wuxuu dhahay Shukri wiil aliga dhaawacay saas ogow waa la isweydiiyay ayagoo meesha taagana waxaa yimid marqaatiyaashan oo carareen markii Cabdullaahi waay Cabdullaahi waay laba markaas Maxamed Deeqiya maxkamadda horteeda waxay ka sheegeen hadeer marqaatiyaashii inuusan joogin Maxamed Barre markii la qabanayo eedeysanaha iyo qol maya markii eedeysanaha la qabanayo markii falka dhacay kala saar ma joogin markuu falka dhacay waa la joogay laakiin markii la soo qabanayo ma joogin markaas lama joogin markuu falka dhacay kadib lama joogin Maxamed waxa laga soo xiray xaafadiisa asagoo jooga saas Soomaa subaxii aan la soo xiro saas Soomaa waa mahadsantahay mid gudoomiye ka soo maxkamad sharafta leh maxkamadda ugu mahad celinaya ka garnaqa kiiskan iyo oo aan xafiis ahaan cadaaladda ugu raadinayno Xasan Abuukar Cali oo dhaawac u gaarsiiyay eedeysana Yaxya Tugtug ugu dambeyn u geeriyooday xafiiska ilaalinta wuxuu ku dadaalay in uu maxkamadda hor keeno waxa cadeeyahay kiiska uu ku eedeynayo eedeysanayaasha siiba eedeysanaha koowaad waxaan ku eedeyn inuu dil geystay dhaawac ka dhashay dil inuu geystay maxkamadda waxa hor keenay mid gudoomiye marka koowaad oo ah Maxamed Deeq oo isla socdeen marxuumka wuxuu cadeeyay in marxuumka loo dilay si kas ah qasdi ah loo jeedo xabad la koob gareey tunkan lagu dhuftay afkaasna u baxay yaa cadeey Maxamed Deeq cadeey oo marka koowaad balse waa dureen abukaatayaasha qaraabo leeyeen haddana waxa maxkamadda hor keenay Maxamed Cusmaan oo sidoo kale cadeeyay in marxuumka loo dilay kas loo jeedo tunkaas lagu dhuftay afkaasna u baxay qaabka hataa waa isku qayb mid gudoomiye Maxamed Cusmaan wuxuu cadeeyay meesha lagu wareystay waxa la dhahay waxay isku raaceen in la dhahay teeke imaadeen mid gudoomiye Maxamed Cusmaan wuxuu cadeeyay in mooto feekon oo hal darawal wado ay soo martay Maxamed Deeqna waa cadeeyay Maxamed Cusmaan waa cadeeyay toosh ay ku qabat Yaxya ay arkeen marka koowaad oo si u dhahay intay u socotaan laba mar la arkay marka saddexaadna uu goob gareystay ee soo fiiriyeen maxaa dhacay Yaxya dooban dhahayay shaatiga qor u qaaday intee ka imaadeen maxaa dhacay saa markii u fiirsheen in uu marxuumka bash u ku sii waliba tunka tugu dhufta afka dhan u bax yaa cadeey Maxamed Cusmaan cadeey sidoo kale mid gudoomiye waxa xusid mudan in maragyadu ay sheegeen dharka nooca ay wateen waxay isku raaceen fanaanad tuuta ah iyo surwaal tuuta ah yaa cadeey Maxamed Cusmaan iyo Maxamed Deeq la wali waxaan joogaa labada bar
mudug gudoomiye ka soo maxkamad sharafta leh waxay cadeeyeen in la goobgareey xabad hadeertaan haddaan xabad goobgareysto maxkamadda waxay aaminaysaa ama qof walba wuxuu aaminayaa in aan diyaar garoobo diyaar garowgaas waa rabitaan maxaan rabaa saddex arrin inaan wax dilo inaan u diyaar garoobo inaan isdifaaco iyo in aan inta iska gashto oo meelo aan u socdo laakiin diyaar garowgi iyo waxa isku xusay mudug gudoomiye xabadii oo ku dhacday marxuum taasoo cadeynayso waxa ahaa iraada doonitaan inay jirto iraadadu waxay ka bilaabatay intee u socotaan xaafadda waa la hubsado meesha u socdo kow laamiga doodhi lahay laamiga iftiin waaye mobilka iPhone heli maysid waxbaa ku jiro luuq inuu galay horta la cadeeyay iraadadu waa leeyahay ma la soo daba kacaa yaa cadeeyay maxamed cusmaan iyo maxamed deeq ma laga daba tagay shan talaabo marka loo jirsaday inta xabadda la furtaa madax lagu dhufto tunkaasna baxay mudug gudoomiye marxuumka aragteen oo yariiska waxa cadeeyay waa maraga labaad ee maxamed cusmaan amarayna marka maxamed wuxuu cadeeyay afar arin oo muhiim ah dharkii mootofee koonto qofkii saaraa haddii la ilaa mootofee koonto dad saaraa dilay macquul ma hal dara walaa waday waxna ma wadan ganay oo la xiran oo la socday ayay been ka sheegi lahayd ganay wax dila ma taagin waxay taagan yihiin yaxyaa qore watay yaxyaa goob garaystay yaxyaana wareystay yaxyaana dilay yaxyaana tunku dhuftay kuma dhaaftaan laa baashas marka maxaa yeelay waxay ka bilaabanaysaaba waraysi dabagal sii soco ku tag goob garayso ku dhufo waa israacda maxamed cusmaan noo sheegay oo kitaabkaas jaamaca ah ee munasalka ah ilaahay noo soo dejiyey u maray mudug gudoomiye ka soo maxkamad sharafta leh maxamed wuxuu cadeeyay arrin qatar ah oo in badan maxkamaddu ay maxkamadaysay oo ah wadankan mudug gudoomiye waxaa dhibaato ku haya drugs waxaan aaminsanahay yaxay inuu ka shalaaynayo hadeertaan waxa uu geystay maxaa yeelay xashiishka markaa cabto waa midda haddaan sharaxnay baranbaray dadku la ekaanaya dadka dhinaa laysa u baahanay dhiigga wuxuu kula dhaqanaya malaha yaxyi marka waylan dhaqreen yaxyi wuxuu u jeedi waayey xasankii uu aqiin oo bangala degnaa oo ay saaxiibada ahaayeen in uu saqiirka ahaa oo madax u salaaxi jiray ayuu baranbaro u maleeyahay markuu madax halkaas ku dhufanayo oo halahan bixinayo inuu baranbaro kab ku dilayo camal qaabku u dilay oo marxuumkaas afka halaan u dhaafsiyey mudug gudoomiye ka soo maxkamad sharafta leh maraga saddexaad muxuu cadeeyey maraga saddexaadna saddex sifo ayuu cadeeyey oo kow ka tahay dharkii oo kow ka tahay goobtii oo kow ka tahay mootadii oo kow ka tahay inuu gari la socday oo ay laba ka tahay inuu xashiish cabaayay oo ay afar ka tahay in uu ku dhufto xabad in uu goob galaysto xataa waa iga fakataxtay lama dhigi kar baashaas maxaa yeelay waa la daba kacay waa la goob galaystay asaa lagu dhuftay marxuumkaas yariiska ah ee maamada aragto yariista ay dhashay mudug gudoomiye ka soo maxkamad sharafta leh saddex jeer inuu arko cadeeyay bashiir oo markii saddexaad ah markii koowaad uu laamay markii mootada markii uu soo daba galay waxa cajiib mudug gudoomiye qaabkii uu arkay inay sharxeen bashiir wuxuu sheegay saddexdooda oo maxamed deeq iyo maxamed cusmaan iyo bashiir inay fiirinayeen saas ay dhaheen qabac marka la sii saas ay fiirinayeen oo ku dhufto saddexdooda ayaa cadeeyay saas mudug gudoomiye waxa cajiib mudug gudoomiye markii uu falka dhacay in taliye uu goobta imaado in maamadu gurgeeda uu gala asiga asoo dhaawac hooyo qaad u dhahay uu albaabka u gargaraacay in isla goobta lagu go'aamiyey in taliyihii uu ku go'aamiyey in uu ku yiri saddexdiina haddaad askarigan qaran been ka sheegta iska jira oo la wado isbitaalka la tagay marxuumkan uu yiri yaa ku dilay yaa ku dhaawacay yaa afkaaga saan u galay yaa tunka kugu dhuftay yaxye taliyihii uu go'aansaday si cadaalad loo helo in uu xiro yaxye oo qatar ku ahaa nafta ninkaas dheefsiin ugu dambeyn mudug gudoomiye ka soo maxkamad sharafta leh eedes xoo ahay maraga saddexaadna wuxuu cadeeyay sarwaalka inuu yahay sarwaal tuuta ah qoreen u watay kaligiisna uu qore ka watay meeshaas mootadana qore wadan asiga uu qore watay maraga saddexaad cadeeyay oo meeshan keen inuu fanaanad wato cadeeyay wuxuu dhilaayo shaatiga cabdiro kala wata u dhilaayo ma dhihi muxuu sheeg fanaanad uu sheeg maxamed cusmaan muxuu sheeg fanaanad maxamed deeq muxuu sheeg fanaanad maxaa isku mid ka dhig hadday dhilaayo iskeebma ayaga naftirkooda nooga marqaatay oo kaatayaasha
mudane gudoomiye garsoorka maxkamadda sharafta leh intaas waxay ku cadeeyayaan mudane gudoomiye waxaan maxkamadda la wadaagnay oo xusid mudan in meeshan uu ku qoray dhaawaci la dhaawacay kadib maadaama hadli karin war ah waxa i dhaawacay Yaxye waxa ila socday Bashiir Maxamed Cusmaan iyo Maxamed Deeq waxaan codsanayaa cadaaladaas oo ah in Yaxye oo saan ii galay oo laga yaabo inaan u dhinto inuusan iga dambeyn maanta maxkamadda waxay u fadhisaa cadaalad u helidda Xasan Abuukar oo saas noola hadlay mudane gudoomiye gasoo maxkamadda sharafta leh xafiisku wuxuu garwaaqsaday intaas markuu arkay gartay isku waajib yeelay cadaalad u helidda Xasan Abuukar Cali wuxuuna maxkamadda hor keenay eedeysane Yaxye Cabdiwaaxid Aways loo yaqaan tugtug eedeysane Yaxye saddex marqaati balaas marq muujinadaan u keenay waliba qoriga ku dilin waa keenay oo maxkamadda dooriyay waliba mobilka uu daba kac waa keenay waliba marqad waa sheegay inuu xashish absana oo meesha isku dhuuqi jiro intaas markay iskaalmaysadaan tiirarka dambiga ma dhis fal ma dhacay yaa geystay Yaxye maxaa inuu geystay sababta xiriiris maxaa waaye waxa xiriirinayo laamiga lagu kulmay meeshii la tagay qaabka loo arkay iyo qaabka uu dilay رسم بودل معاوية سدح رسم إنه أنا ملاين بالآدم حسن أبوك أو ملاين برنبرو إن أو عبسنا حشيش كاس يلا يمسك على معص إن أو ربي موبايل كايفون كايركا ومينيا إن أو كدش وقدام بينه وكدش وقت أرضي تليا وساقط من قدام وسكوت إنه محمد داق وكوهن ده ماشي تليه هرتيش إنه كوهن ده لكن محمد داق وجيسه هي أوبر هري أدا دشي نك مساكين كاي صلح كي ماضي الآن لوده وبوليسي ملتاري ودك وحلو تلقى إنها حسليان وين حسليان حلك حبوه ما يكمل هاو حكمت الشرف كل حكوا عشاننا وحكوسوا إليني آيات بقولت ضبطني سديدات ولكم في القصاص حياة نرولا نوجد جرتو ولو نفسدي مجالنا أنا بدأ نقطي وحنا كذا وحواي قصاص محكمة إذا بدأ يفلس وعدالة هلدا وكمدة حسن أو كرا كذا البنين قصاصي أي فلوسي وهيك أنتي إن ما أنت مجالنا سنة بدل العمر إن ما شعرت أتيكر محكمة الشرف كلها حكوا عشاننا وحقي وضل بدأ وهلو حسن أبوكر علي إن دلتوك شاكو كنت سنة يحتوك أو مدو إلهي نوشي حياة يا أولي الألباب حياة واي نرال واي مركي يحيى الدلو نرال واي في مجال المولونا محكمة حكوا عشاننا إن يحيى توغتو دلتوك شاكو كنت إذا سنة لبات محمد بر علي وعنكسو إذن إنه قريي إنه دنبي تاعي وقعنسين إيه تاعي ayaan ka codsanay maxkamadda ku xukunto qodobka ku soo eedan maxkamadda maasanta salaan kadib mudane gudoomiye magacaygu waa maxamed xasan Uthman jeelle qareena waa Yaxye Cabdiwaaxid Aways si waafaqsan qodobka 15aad 16aad xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed waxaan mudane gudoomiye aniga iyo saaxiibkayba qareen u nahay eedeysanahaas sala ku xusan oo aan maxkamadda la wadaagay magaciisa si wada jiran uga difaaci doonaa maxkamadda horteeda intaasna waxaan rabaa inaan maxkamadda u sheego sida kiiska uu u baalmarsan yahay xaqiiqada dhabta ah ama saldhigi ha ku soo cayaara kiiska ama xafiiska xirlaalinta markuu soo gaar waxay ahayd xafiiska xirlaalintu inuu ka wareejiyo ninka arrintaas soo qoray inuu ka wareejiyo si waafaqsan qodobka 111 inuu la wareegay baarista lama wareegin gungaarkii uu maxkamaddu soo gudbiyay horgeentiya galkii la soo galiyay eedina galkii la soo galiyay intaas inay isfasiraan loo baahan yahay xirlaaliyana mas'uulka si waafaqsan qodobka 7aad iyo qodobka 71aad xeerka habka ciqaabta Soomaaliya mas'uuliyadiisa oo xeerku uu saaray arintaasna waxaan rabaa mudane gudoomiye qodobada eedda ku qoran horgeynta eedda lafteeda gungaarka xilliga falka dhacay kulligood mid saxsan kuma jiro kaliya waxa la isku waafaqsan eedaysanaha la yiraahdo asaa ninkii dilay intaas waxaan rabaa inaan uga gudbo arinta ku saabsan qodobada iyo eedda waxaan maxkamadda la wadaagaa oo rabaa in maxkamadda u sheego maragyadii maraga Maxamed Deeq waa kafallahu min al-qitaala asaa maxkamadda hor yimid marka hore wuxuu isku dayay arinta inuu ka warwareego laakiin maxkamadda si ay cadaalad u hesho su'aalaheeda waxa ka soo baxay iyo kuwan anagu weydiinaba in maraga uu leeyahay qaraabo haddii marka maraga uu qaraabo noqdo
hadduu maragga qaraabo noqdo si waafaqsan mudane guddoomiye waxaa dan ugu jirtaa kiiskaa dan ugu jirtaa si waafaqsan qodobka 197 xeerka habka ciqaabta Soomaaliya maraggiisa waa duraya waana la diidayaa waxyaabaha iyo siyaalaha loo diido maragga ayuuna ka mid yahay maxamed deeq marka meeshaas uu ku dhamaaday hadduuba eedaysani dhibanihi la koray ayaydiis ay dhashay ayaydiis asaga habaryartiis inta ay soo istaagtay ay tiri ilma habaryaraan ah waa dhamaataba isla qodobka mudane guddoomiye garsoore maxkamadda sharafka leh 304 wuxuu qeexayaa yaa qaraabo ah xeerka ciqaabta Soomaaliya yaa qaraabo ah usuusha furuucda gabdhaha walaalaha zawjka qaraabada xididka waxa soo dhawa qaraabo manfaca ugu jirta dana ugu jirta marka asaga kama markici karaba fal galkan maba ka marqaati kici karaba maragaasi marka meeshaas rabaa inaa uga baxo maraga indhay u imaad maraga indhay wuxuu sheegay wax maragyada kale aanan arkin oo la yaab leh 3 nin oo laamiga taagan ee marqaatiyaashii la keenay ay dhaheen waan aragnay su'aalayna weydiiyeen wax ay cabaayeenna ma jirto ayuu yiri xashiish cabaayeen qacsaayeen su'aashaas laftirkeeda weydiinay xashiish ma cabaayeen eedaysanaas waxa weydiinay marqaatiyaashii kale ma ay dhaheen annaga ma arageen soo xashiish cabaay eedaysani marqaatigaani wuxuu ba khilaafsan yahay maragyadii la socday oo laba ah asaga hal xabo oo laba ah ayuu khilaafsan yahay waa marag duran jaban waa ninkii laba marag oo la socotay waxaynan arkin waliba la arki karo arkinna yiri waa arkay waxa uu sheegayo ka dambeeyana waa been waxa uu sheegayo ka dambeeyana waa been waxba kama jiraan waxa soo hara maragga la yiraahdo Bashiir Bashiir waa hal marag hal marag dil qisaasa ma ka maraakici kara ma ka maraakici kara fiqh islaami ma ogolaba dhibanihi Allah u naxariisto marxuumkii dhinta jannadii Allah geeyo kuma faraxsana inuu dhinto marxuumka kuma faraxsana eedaysana wuxuu leeyahay xafiiska xirlaale wuxuu yiri WhatsApp-ka telefonkiisa ayay iskala hadleen maxdarka loo geliyay waana duubanta telefonka lagala hadlayna waa la soo gudbiyo annagana waa nala siiyay waa kana warbixinta ay leeyahay telefonkan isku dhaafsaday lambarka 587 kuma ba qornaba Xasan Abuukar ma balahamba Xasan Abuukar ba male حسن أبو كرب ملك وها إسكله أمينة محمد صالح إسكله وأنا هو يدي إيانا كلا هذا الشيء إيانا كلا هذا الشيء وربحت أنا كفهمي كرتا إذا أيضا كلا هذا الشيء حال ليه مجا عاجة أوسط دحن ولا الإيشاك قال ليه إيا مجا هو يدا أكو قرن حسن أبو كر علي أمينة محمد صالح تليفونkiisi isaga oo uu lahaa ma aha waxa laga hadlaayay waa taleefan ay leedahay maamada ayaa warbixinta isdhaafsanayaan iyo baara wuxuu leeyahay marka waxa ila hadashu leeyahay waliba fiiri mudane guddoomiye in ayagu isla hadleen waxa ka fahmay bukaanka hadda ayaan sawirka ka soo qaaday leedahay waa kana hadda sawirka ka soo qaaday leedahay sawirkiisana waa kana soo ma jeed asagana wuxuu leeyahay xafiiska xirlaalaha baaraha iyo xasan inta uu noolaa isla hadlay arrintaas iyada waxay khilaafsan tahay cadaynta uu soo gudbiyay khilaafsanta nambarkaani waxa ku qoran gabadhaas ku qoran waa nin telefoon leh ayadana waxa waaye maragyadiina waxaan rabaa inaan meeshaas uga gudbo warbixintii ku saabsaneed WhatsApp-kana waxaan rabaa meeshaas inaan uga gudbo waxaan rabaa maxkamadda inaan la wadaago maxaa dhacay waxa dhacay maxay yihiin xer yaxya xagee joogay seesa waxa haayeen ilaa maxkamaddu meeshii ma tagine horteeda wax looga sheegay annaga waxaan rabaa inaan la wadaagno xaqiiqada dhabta ee jirtay mudane guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafka leh xilliga falka dhacay habeen 4 saac habeen 4 saac ayuu taliyihiisa la socday Cabdi Shukri ninka lagu magacaabo ayuu la socday
cabdishukri markuu tegey xerada bangala ay galeen wuu ka soo tegey yaxye wuxuu degan yahay isla bangalu degan gurigiisuu u socday laamiga waxay ku kulmeen meesha muhiim waay waxay laamiga ku kulmeen nin la yiraahdo Cabdullaahi oo hadda meeshan fadhiyo oo wiilka abti ah Cabdullaahi wuxuu ku yiri kaale gurmad iyo fidi wiil aan abti u ahay ayaa xabad ku dhacdaa la yiri hadduu ilaahay ka cabsanaya saada la weydiin doonaa dabcan inkastoo ehelkaya waa la weydiin doonaa intaas markuu yiri muxuu sameeyay yaxye u fiirsa mudane gudoomiye yaxye wuxuu wacay taliya cabdishukri wacay asuu yiri waxa ila joogo nin odaya wiil asaga abti uu yahay in la dhaawacayna ii sheegay ayaa ila jooga ee kala yimaad meeshaba taliyaha inuu yimaado waxa sabab u ahaa yaxya sabab u ahaa oo wacayba oo keena meesha markii meesha la yimid oo taliye meesha uu yimid Cabdullaahi u fiirso Cabdullaahi taliye iyo yaxye intaba waxay soo aadeen goobta falka ka dhacay waxaa la ogaaday oo ay ogaadeen in ninkii marxuumka ahaa ama dhaawac ahaa laga qaado meesha ninkii dhaawaca in meesha laga qaaday oo la baxay meeshaas markay joogto ehelkii oo uu ka mid yahay waxaanoo dhanna saldhig u ah maxamed deeq oo guriga kula soo koray oo ayeydii ay dhashay oo markii hore iska inkay laakiin habaryartii ay cadaysay marxuumka hooyadii ay cadaysay ayaa yiri wax kale ma jooga meesha alla ilaaha markaa geedka ka soo dhaceysay yaa ku dhawaay yaa meesha joogo qori wata yaa qori wato meesha jooga markaasuu farta ku taaga marxuum eedayso oo yiri ninkaana aad dilay ilaa asaga meesha joogay Cabdullaahi og xogta dhanka warqaba waxay ahayd in la abaal mariyo la yiraahdo waxa wacda taliye fiiri askari magaaladan wax ku dilay ee maxkamadda ciidamada ay ka dambayso ee magaaladan wax ku dilay miyaa taliye inta wacdahay kaale gurbada u fidin qofka la dhaawac kaale u imaad mise waa carra qorigu qari laha wuxuu haystay fursad uu qori ku qariyo wuxuu haystay fursad uu ku fakado haystay waxa soo dhaw haystay ma jirto marka inuu dilay ma jirto arrintaas waxay cadeynaysaa inuu wax shaqo ah ku lahayn falka meesha ka dhacay meeshaas marka laga soo baxay marka mudane gudoomiye isbitaalka la yimid isbitaalka markii la yimid ninkan odaga ah ee maxamed deeq ayaa inta baxay u galay sida dadka goobjoogana ay sheegayaan eedaysana laftirkiisana uu sheegay wuxuu u galay ninkii dhaawacnaa xasan u galay markaasuu yiri ninkii waa joogay yaxya ahaye kaale ku dheh yaxya waxay waliba wuxuu la soo baxay asoo farta ku fiiqay waa kaasa yaxya soo dhaay ninkii odaga ah waa soo baxay isla markiina ninkaana ay dhaawac u yiri waana iska noqday meeshiisa lagu celshay habeenuu dhacay oo shaqartu degan tahay 5 saac habeenimo iyo 4 saac eeriyadeeda ah la kala seexday subaxdii hadduu meesha ku kalaho isla habeenkii waa la xiray ninkan odaga markii la xirayba faldambiyeedkii waa gaaray saldhigga soo maahan ha isla markii subaxdii aroortii inta buuxinteena dad soo kicin fooq inuu meesha ka soo qaado isu baaro isla haysiiyo isu keena maxkamadda ma dhicin waa ka gaabin asaga uu ka gaabiyo waa duudsiin xaqi marxuum ka dhintay allah u naxariistee cadaaladda horteeda lagu duudsiinayo waay mana aan si saxa waa eed uuna lahayn eedaysanaha oo la saarayo waa anoo maxkamadda u beeqaaminaya waqtiga waxyaabihii aan ka tegay iyo difaaca qaar ka mid ah waxaan u daynayaa qareenka saaxiibkeen u daynaa iyo gabagabadaba maxkamadda sharafta leh waa maasinta maadaama dhammaan cadaymaha iyo maragyada maxkamadda la hor keenay ay isburinayaan iska hor imaanayaan dhacdada ay shubahaad kala duwan ku furayaan maadaama muwakilkeena markii eed loo jeediyey uu ku jawaabay in uusan faldambiyeedkaasi uusan gelin cadayntana ay saarantahay xafiiska xeer ilaalinta si shakil aanana uusan u cadaynin in eedaysanaha uu falkaa galay sababtoo ah saan sheegay uu keenay cadaymo aan lid ku ahayn muwakilkeena oo dhammaantood shubahaad uu ku furan yahay maadaama asal ahaan qofka muwaadinka uu beri yahay ilaa looga cadeeyo faldambiyeedka si aan shaki ku jirin waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanaynaa in ay muwakilkeena ku weyso dhammaan qodobada eedda ee lagu soo eedeeyey inay xorriyadiisii ay dib u celiso iyo inay qaraariso in shaqadii qaranka uu hayay uu dib
sii wato maxkamaddu waa mahadsantahay mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh waa Abukaati Ismaaciil Xalane oo qareen u ah eedeysane Maxamed Barre Cali Axmed mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh eedeysanaha aan qareenka u ahay run ahaantii waxaa lagu soo eedeeyay qodobka 297 oo xeerka ciqaabta Soomaaliyeed mid sheegay haba yaraatee in uu gacan fidiyay eedeysane Maxamed Barre Ganey gacan inuu fidiyay mid sheegay ma jirto mudane gudoomiye saddexdii marag oo la keenay maxkamadda intaba ma aysan tilmaamin mana aysan oran Maxamed Barre gacan uu ku bixiyay dhibka maanta maxkamadda ay ka garnaqayso marka laga soo tago markii saddexda marqaati baarista kiiska waxaa lagu dhisaa cadeynteeda maraga haddii maragii uusan oran taas haddana mudane gudoomiye baarihii kiiska su-aashii aan weydiiyey ahayd ma ku jiray gacan ma fidiyey ma geystay goobtii markii laga soo qabanayay falka dhacayay ma ku jiray maya hadduu ku jawaabay idmiinis waxay dhigaysaa Maxamed inuu meesha biri ka yahay oo shaqo ku lahayn garnaqa maanta loo fadhiyo ee dacwadan Maxamed maanta wax lagu ciqaabi karo oo la keenay ma jirto marka loo kacana shariicada islaamka waxay leedahay wala taziru waziratan wizra ukhra marka batatan ba maxdarka maanta aan fadhino hal cadeyn oo cirbad caaradeeda la eg oo la soo bandhigay oo Maxamed Barre lagu leeyahay intaanu ku leeyahay qodobkan 297 marnaba ma jirto marka hadaysan jirin codsigaygan u gudbaaya maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanayaa maxdarka hadda aan joogno isla fadhiga hadda aan fadhino inay ku dhawaaqdo siideysmada Maxamed si waafaqsan qodobka 122 oo ah in lagu waayo dambigaas qodobkaasi 297 mar labaad maxkamadda waa uga mahad celinaya codsigaygana inay ii tixgelisaan rajaynaya Maxamedna hadda eheladiisa inuu dhinac ka raaco maxkamadda waa mahadsantahay dood baa dhegeysiis maanta dhamo maxaa ku baxay waxaan arkay nin Cabdullaahi la yiraahdo hadda goobta fadhiya oo dhahayo wiilaan abtuu ah la dhaawaca asaga waxa dhahay gargaar u sameey maadaama muwaadin Soomaaliyeed oo yahay meesha joog anina goobtii shaqada ilaa hadda markaas kama aan bixin waxaan dhahay ninkii halkee wax lagu dilaan dhahay xaafada dhexdeeda uu tilmaam waxaan si taadii qorayeen qoraya wax lagu dilan oo leeyahay waxaan ka baqay keligii macnaa meesha ina aado hadii aan tagana waa hal shakhsi qora waa qof qori wata kula xisaabtama Sooma kaliya wax kama qaban kartid waxaan dhahay tan kuma dhaqaaqi kartid sargaalka waxa kuma maadaama uu ka agdhow yahay waa sargaalkan waxaan dhahay tali meeshaan dhib laga sheega dad la dhaawacay meeshaan ina ka soo gaartaan rabaa yaa waayo yiri waxa kula taagan meesha aan taaganahay hadan baan sheegay way har fadhiya meesha aan taaganahay farmashi oo ka shaqeeya alaamiga bartow ka saaran yahay aan taaganahay waxaan dhahay taliya asaan oo imaahaye bartaan aan ku wada sugun hayahu idha barti kama aan wada tagin aan isku arag taliya barti noogu wada imaaday Cabdibilaan barti ka raacay doonta raacay asagana taliya shirka la galay markaas ka bacdi meeshii dib ka dhacay marka meeshii dib ka dhacana wax taagan mala wax yaalana mala oo dhaawacana ma aan ugu tagin dhiig leh dhulka yaala ugu tagin halkee waay aan wixii dhaawac dibka sheegaydeen aaway waa taliya weydii isbitaal loo qaado dha markaas ka bacdi anagana soo aadna isbitaalka hadaa imaanana waxa la sheegaaba ana qaado waayay qorigeena waa ka soo doortaado yaal hadii xabad ka dhacday asaga ay cadeeyaa asaga cadeynaya qof muwaadin oo shalay aan u shaqeeyahay in aan wax u geystana ma dhicin taas mana dhacay maxkamad ma ka dalbanay xoriyadda la siyaar baan ganay aanu gudoomiye adiga ninkaana wax dili asaa qarnay hal ugu dhax mudane gudoomiye aniga ninkaana doo wax dilay mase wax geysta aniga inaan qariyo ma xataa aabay haduu yahay xataa aniga garbeyga malaa'iga saaran waxa hadda maxkamadan waa dhageysay aniga dacwada waana maqlay gacansiin aliyeed gacansiin aniga qofka bilaadka marka horta oo wax dilo Soomaa gacansiin waxa siihay aniga ninkan walaalkay aniga waxa hadda la sheegay gacansiinta waxa leeyahay ma jiraan aniga gacansiin hadaan sameeyahay ninka wax dilay ninkan waa looyaa qorigiisa ma qaadi lahay ma asigaan la fakalahay la dhuu ma lahay waayo inta soo baxyo oo yimaado laamiga taliyiis inta wacyo masalaama amaanka inuu inta waco ma dhihi lahayn ahayd falkaas dhacay hal yimaado habeenkaas joogtay habeenkaas aniga hadaan dambiga sheegay garbeey malaa'iga saaran laamigan horta anoo fadhiyo aniga iyo wiil Muuse liiraaw iyo mid kale laamiga fadhiyo
waxaa loo yimid 4 saac bar marka ay tahay yaxye meeshoo nagu salaamo waa is salaanay meeshoo laamigoo dhinac ka istaagay darbiga laamiga saa markuu noogu istaagay waxaana soo maray marxuumkan dhintay iyo yarkaas iyo yarka kaloo hadda meesha marqaatiga waa hadda la leeyahay isna inta meesha hadda la soo istaagay waa isla socdeen ayaa ka marka su'aashan u bawraay iyo warma caalidi waa fiicnaan yaxye ayaa ka su'aasha isdhaafsaday warsayti caalidina ka war waa fiicnaa meesha ku ekeenay markay ninkaas iyo dheerka oo buuran wuxuu soo jirnay yarka dhimaayo nimaho caawa waa cafuufeysanahay salaxaa nagala soo xirta caawa xaafadaan u socnaa saas miyaan dhaanay yaxye asaa iswareysteen saas miyaa bilaa tawfiiq hadda saas tahay ay habeen wanaagsan sidii noogu gudbeen meesha markay noogu gudbeen sidii intaysana gudbin ee luuq ayna gelin yaxye markuuna soo ag istaagayo mid askariya oo qoro wato iyo cunug shacaba oo maaskaraati wato meesha soo istaageen yaxye markuu soo istaagay yaxye iyo kii qoriga wataa warka isdhaafsadeen labada nin oo qoryaa wadataa war isdhaafsadeen yaxya wuxuu yidhi niyow waxaa ka wadoo yidhi wixii aa samaysa galabta kii qoriga watou leeyahay markii kii oo la yidhi waxaa samaysa xeetaa oo yidhi niyow saaxiibkay maxaan ku samaysoo yidhi galabta falka qoriga ugu qabat xee ahayd yaxyaa dhaa moogtahay kii kaloo qoriga wataa soo booda wuxuu yidhi niyow aniga inaan qoriga ku qabto madow laakiin habeen dhexdaasoo qori ugu qabtay aniga qorla-aana ahay maadaama aan qorla-aan habeenkaasa ahay anigana qorigeyga caawawatay saas awgeed aan ugu qabtay waana naga degteen markay degteen yaxye dhalinyaradan oo salaxa ka yimideen aana soo mareen aniga ninkaas marxuumka walaalkay waa dhintay aniga inaan dembigiisana duugano aniga ma laga yaabo wixii aniga ogo ilaahay uu ogyaana sheegayo goorma kala tagteen marka yaxye aniga 10 daqiiqo ma dhameen baan waxaan isla wada joognay oro ka baxay waa kala tagnaa asiga iyo muuse gure yar aniga ila fadhiyo marka hore 3 meesh ku fadhinay asaa 4 nugu ahay asiga iyo yar kala israaco muuse gure leeyahay xaafadaan aadaawir aniga xaafadeeda aadaan la saac maani waa ma sitay sidii aan ku kala tagnay ninka dhintiya dil marka xabad ku dhif ma sheegi karo ilaa loo garbeeyay malaa'iga saaramadu gudoomiye aniga gurigeyga anoo jiifaa la yimid 7 saac bar marka la yimidna gurigii igu dhagnaa guriga waalidka wararta digneed guriga idoo la jajabaan soo kacay xeetaan dha guriga waxa la jajabaa war soo baxdiga lagu baayay xaajiraan dhahay saaxiibka aheed saaxiibka yaxye wuxuu u deegeesta dil yarkaas sebela war aniga waxaas ma og mana kala aqaanaan dhaani waxa oo geestane mana aqaan saas deeta adaa kala saaraa nabadaali saldhiga liimakeenu caligeeye laanta kale oo ka tirsaneed cusboole marka haddaa kala tagteen dhinaca ciyaalka ay ka baxeen aadeen miya adiga yaxye aniga ma yaxye laamiga halkaas soo aad xaafidiisa iska aad anigana xaafideeda aad ciyaalka tii aadeen marka aad ma raacmin sa raacay ciyaalka wada isku wadaan lahaaba aniga ayaka yaxye marka wadaas ma maraasna ma qaadin laamiga halkaas u qaad anigana wadadeeda ka soo bax maxkamad maxaa ka codsanay maxkamadda waxaan ka codsanayaa dambi maliyo aniga qof muslimna ay qof dhintan aniga been ka sheegi maayo 3 bilood bishii saddexaad aniga xuriyad la'aan xuriyadeeda inaan ka helaan ka codsaa dhegeysiga garmaqalka dhanka ka ahaa eedeysanay yaxye cabdiwaaxid aweys iyo maxamed barre cali intaasuu ku dhan yahay maxkamadda go'aan soo saaraysa fadhiga waa xiran yahay